waxay horraanti bishaan soo dhaafnay October markii jirirda Charlie Hebdo ee laga leeyahay dalka Faransiiska ay soo saartay sawir gacmeed aad u qariban oo ay ku aflagaadeen suubinihii Maxamed alayhi salaatu wasalaam sawirada kuwaas oo markii dambe difaacay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron intaasi kadib waxa soo baxay oo la kadan dawladda dalka Faransiiska oo loogu baaqay muslimiintu meel kasta oo ay ka joogaan daafaha caalamka in ay gabi ahaan bajoojiyaan iibsashada wax soo saarka dalka Faransiiska si cadaadis hor loogu saaro Macron iyo dawladdiisu in ay cudurdaar rasmi ka bixiyaan aflagaadada qaawan ee lagu la kacay حبيبكني محمد عليه الصلاة والسلام سؤالها سيسويدين تلا وحا ككوه سامين طبعا مكو يلان طونتا قدومين تاني دقالها دالكا فرانسيسكا حتى يساكو يلا توصو دا انت إليك ايا ايكو كيني طونتا دقاليسا هل مليون ماي لابا والله هو كبدا نساكو لي تضبط كورنا وربحين Emmanuel Macron تلفزيون قالت السيرة وحا وكتبا in هذا الكيسي مسلمين تكاقدودي si qaldan loo turjuntay baroorta orgiga ka weena ma oran karnaase go'doominta ayaa warka kaasa ka yeersiisay mowduuca kan ayaa u daaran yahay barnaamijkeenu fadlan laakiin haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe taaba adigoo gambalaalkana furanaya si uu ku soo gaaro muuqaal waliba oo aan kanaalka soo galina sidoo kale ha nagala baqayn inaad muuqaalka like saarto ku soo dhawaada muuqaalka صدقني سبتمبر 2005 جريرة يولانس بوستون اللي قال لي هيدا الدنمارك waxa ay soo saartay sawir gacmeed lagu aflagaadinay nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bilowgii hore dawladda islaamka iyo dadweyga ku dhaqan falcelin la taaban kara kama aanay sameyn arrintan laakiin 3 bilood kadib dhacdada tan siba ahaan bishii January 2006 waxa bilaabmay olole aad u ballaaran oo ay dadka muslimiinta ay ku joojinayaan iibsashada wax soo saarka dalka Denmark labaatankii January 2006 ololahani waxa uu si ballaaran uga taabagalay dalka Sacuudi Carabiya maalmo kooban gudahooda goobaha lagu tukaameystay ee ku yaala dalalka Masar, Sacuudiga, Kuwait, Imaaraadka, Cumaan, Qatar, Jazaa'ir, Bahrayn, Urdun, Tunis, Yemen iyo dalal kale oo badan waxa gabi ahaan badbada looga soo qabay wax soo saarka dalka Denmark xataa dukaamada iyo supermarketyada mulkiilayaasha iska leh aanay taageersanin go'doomintani ololaha kan qayb bay ka ahaayeen iyaga oo ka cabsi qabay in macaamiishoodu ku gadoodo 10 cisho kadib toban maalmood oo kaliya kadib markay taariikhdu ahayd 30kii bishii January jariiradii aflagaadada tan soo daabacday ee Yulanis Boston waxa ay bixisay raali gelin hase ahaatee taasi meedjin xaaladii kacsanayd iyadoo ay dadka muslimiinta dalbanayeen raali gelin rasmi oo ka soo baxda dawladda Denmark laakiin xukuumadda Denmark waxa ay si cad u diiday raali gelintaas inta kadib go'doomintii ay muslimiintu geliyeen Denmark waa si ballaaratay iyadoo oo go'doomintani beegsatay shirkado badan oo Danish hase ahaatee shirkadda Arla Foods oo mid ka mid shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka soo saara caanaha lagana leeyahay dalka Denmark ayaa si ba'an go'doomintani u saameysay iyadoo oo sanad walba dakhli dhan $550 milyan kala huleeli jirtay suuqyada wadamada bariga dhexe oo suuqa labaad ee ugu weyn ee shirkadani alaabteeda u iibgeyso marka laga yimaado Yurubba dhawrkii cisho ee u horeeyay go'doominta shirkadani waxa ay maalin walba gelisay khasaare dhanka iibka oo gaaraya $1.8 milyan gabagabadii bishii January gabi ahaanba waxa istaagay iibkii shirkadani ay ka sameysay wadamada bariga dhexe taasi oo ku qasabtay inay xidhaan warshadii kaliya ee ay ku lahaayeen dalalka Carbeed siba ahaan Sacuudiga Astrid Gade Nelson oo ahayd afayeenka rasmiga ee shirkadda Arla Foods oo u warantay BBC ayaa u sheegtay Arla Foods muddo 40 sano tacabkii ay gelinaysay bariga dhexe waxa uu ku baaba'ay 5 cisho oo kaliya iyada oo sababna uga dhigtay go'doominta dalkeeda muslimiintu ku soo rogeen saamaynta taban ee go'doomintani ku yeelatay dhaqaalaha dalka Denmark waxa ahayd mid aad u ballaaran iyada oo muddadii u dhaxaysay bilaha February iyo June sanadkii 2006 hoos u dhac gaadhaya 15.5% uu ku yimid alaabta ay Denmark dibadda u dhoofiso ra'iisul wasaarihii Denmark Anders Fogh Rasmussen inkastoo uu diiday in ay xukuumaddiisu raali gelin ka bixiso aflagaadada nabiga lagula kacay calayhi salaatu wasalaam haddana waxa uu dhankiisa tibaaxay in sawir gacmeedyadii nabiga wax lagaga sheegayay ku keentay dalkiisa in xiriirada diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay dunida inteeda kale ay gashay xaalad aad u xun oo aan hore loo arag tan iyo ilaa dagaal weynihii adduunka ee labaad tii qabsatay Denmark 15 sano ka hor
la mid ah ayay u egtahay in uu geliyay dalka Faransiiska kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay ay bilowdeen olole ka dhan ah dowladda Faransiiska iyada oo muslimiinta loogu baaqay gebi ahaanba inay joojiyaan iibsashada wax soo saarka dalkaas si loogu hiiliyo nabigeennii subhanahu alayhi salaatu wasalaam. ololaha kan ah waxaa dabka ku sii horiyay hadallada ay qabtay isla weynid ku jirto ee ka soo yeedhaya hogaamiyayaasha Faransiiska. tusaale ahaan 25 Oktoobar maqaal rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa u yeelay sida tan: ololahani waa mid qaawan waxaana qasaba in la joojiyo hadda. ereyada uu Faransiisku adeegsaday ha ahaadaan kuwa kibir iyo isla weyni ku jirto, laakiinse waxaa laga dhadhansanaya walaac hor leh oo dowladda Macron ka qabta go'doomintan muslimiintu ku baaqayaan. walaaca kaasi ah oo ka dhalanaya iyada oo sanadkii tegay 2019 Faransiisku u dhoofiyay wadamada 750 ah ee ku midaysan dalladda ururka Islaamka wax soo saar qiimihiisu dhan yahay $50 bilyan. xaddiga lacagada intaas leeg oo u dhigma 9% badeecadaha Faransiisku dibadda u iibgeeyo. Turkigu waa dalka ugu badan dawladaha Islaamka ee wax ka soo dhoofsada Faransiiska iyada oo sanadkii 2019 uu ka soo dhoofsaday alaab qiimaheedu dhan yahay $6.7 bilyan. kadib waxaa ku soo xigtay Jazaa'ir, Morocco, Qatar, Tunis, Imaaraadka Sacuudiga iyo Masar. haddii aynu mid iyo laba ka taabanno badeecadaha ugu muhiimsan ee dalka France u soo dhoofiyay dowladaha Islaamka, waxaad ogaanaysaa in Faransiisku yahay dalka labaad ee ugu badan ee dowladaha Islaamka ah ka soo dhoofsadaan dawooyinka iyaga oo dakhli dhan $4.4 bilyan geliyay. halka kaalinta koobaad uu kaga jiro Faransiisku dalalka u dhoofiyay dowladaha Islaamka cosmeticska ama agabka la isku qurxiyo isaga oo ka faa'iiday 2018 dakhli dhan $2.6 bilyan. sida oo kale Faransiisku waxa uu leeyahay shirkado waaweyn oo xarumo muhiim ah ku leh dowladaha Carabta iyo dalalka Islaamka. shirkadahaas oo leh gundalool ama weak point khatara kaasi oo ah inay suuqa kula jiraan shirkado kale oo tartan ka dhaxeeyo, arrintaas oo iyana saacidaysa go'doomintooda. khasaaraha kaga yimaada Faransiiska go'doomintani ma noqon doono mid burburiya dhaqaalaha waddankaas, balse wuxuu noqon doonaa mid saameyn ba'an ku yeesha kuna keena hoos u dhacaad weyn, siba ahaan haddii uu ku soo beegmo waqtigan oo dhaqaalaha Faransiisku aad u arrinta taas cidda ugu weyn ee dareensani waa Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha dalka Faransiiska. aniga aragtidaydana waxay ila tahay waa arrinta keentay in Macron waraysigii Al Jazeera uu siiyey ugu tibaaxo in hadalkiisa la qalad fahmay loona arkay inuu difaacayo sawir gacmeedka nabiga wax lagaga sheegayo. inagoo wada ogsoon inaan la qalad fahmin si uu si cad u taageeray kuwaas rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee caayay. Macron warkiisa halkaa inoo dhig aynu isweydiinna su'aasha ugu muhiimsan oo ah go'doominta ay muslimiintu gebi ahaanba ku joojiyeen iibsashada wax soo saarka dalka Faransiisku ma noqon doontaa mid saameyn yeelata isla markaana midho dhalisa laguna guulaysto. inta aynan si ka jawaabin ka hor waxaa habboon inaad ogaato in farqi u dhexeeya go'doomintu inay noqoto mid saameyn yeelata iyo in ay noqoto mid lagu guulaysto. go'doomintu haddii ay hoos u dhac la taaban karo ku yeelato dhaqaalaha cidda la go'doomiyey, waxaynu odhan karraa go'doomintu waa mid saameyn leh. goormaase haddaba lagu tilmaami karaa inay tahay mid guulaysatay? waxa aynu leenahay go'doomintu haddii ay xaqiijiso hadafkii ama yoolkii loo dejiyey, markaasi ayay tahay mid guulaysatay. tusaale ahaan, go'doominta Faransiiska ee hadda taaba gashay waxa ay noqon kartaa mid saameyn yeelata oo dhaqaalihii Faransiiska hoos u dhac ku keenta, laakiinse aan guulaysan iyadoo aan xaqiijinin hadafkii ama yoolkii laga lahaa ee ahaa in Macron iyo dowladdiisu raaligelin rasmi ah ka bixiso aflagaadadii nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. ugu dambayn, haddii aynu muslimiin nahay waxa ina saaran in aynu meel uga soo wada jeedsanno ciddii wax ka sheegta diinteenna iyo nebigeenni Muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam. nebigaas oo Alle subxaanahu wa tacaala inagu addoonsaday in uu noqdo kaynu adduunka ugu jecel nahay. xadiis uu Imaam al-Bukhaari saxiixiisa ku soo saareen rasuulku waxa uu ku yidhi: laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin. muuqaalkana kana maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay ha ilaabin inaad like saarto kuna soo bir kanaalka adiga oo subscribe taabanaya gambaleelkana furo. muuqaalka ka xigay intaan isugu iman doono nabadee. kana waa Instagram-kayga isoo follow garee. mahadsanid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. مبلغ waxa balcodka ha eerfanama isanayo
si cadaadis hore loogu soo dhacda gacantaas loo dhahay hadhow wax soo degayna sidoo kale جرى